wasaaradda waxbarashada waddanka Senegal ayaa ku biirtay liiska dalal badan oo horey goobaha waxbarashada ama wax lagu barto uga mamnuucday in ardaydu u qaataan taleefoonnada gacanta kadib markii ay caqabad ku noqdeen waxbarashadooda. Warka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada Senegal ayaa lagu sheegay in guud ahaan dalkaasi laga mamnuucay taleefoonnada gacanta in ardaydu ay la galaan goobaha waxbarashada laga bilaabo sanad dugsiyeedka soo socda sida hadalka loo dhigaya. Laga bilaabo sanad waxbarashadeedka soo socda waxaa si guud loo mamnuucay in goobaha waxbarashada ardaydu u qaataan taleefoonnada oo caqabad ku ah daraasadda ay qaadanayaan sidoo kalena saameyn taban ku leh caafimaadka ardayga ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada waddankaasi. Dalal dhowr ah ayaa goobaha waxbarashada ka mamnuucay in ardaydu u qaataan taleefoonnada gacanta oo inta badan mashquul ku ah fahamka ardayda ee xilliga lagu jiro daraasadda ay bixinayaan macallimiinta. Hase yeeshee Soomaaliya oo inta badan taleefoonnada gacanta inay qaataan iska daaye ay kuwa taajka amaba laga daawado baraha bulshada isticmaalaan ardayda, waxaana inta badan haddii la isku dayo ama macallimiinta ay u saweeyeen haddii isku day in taleefoonnada laga reebo ay imaado in waalidku ay ku cabanayaan dhaqdhaqaaqa ama la socoshada carruurtooda maadaama waddan xaaladiisa allow sahal tahay.